dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dejisay qorshe cusub oo ka dhan ah ciidanka Itoobiya ee dhaqdhaqaaqyada foosha xun ka wada deegaano ka tirsan dhinaca gobolada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyagoona halkaa ka sameynaya abaabul weyn oo la xiriira sidii ay u raadin lahaayeen damacooda ku aadan in ay dhaqdhaqaaq siyaasadeed ku yeeshaan arrimaha halkaasi ka jira ila kala duwan ayaa warbaahinta xuraasi waxay u sheegeen in saacadii u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay waday abaabul iyo qorshe weyn oo arrimahaasi la xiriira tiyo jirto ayay saraakiishu waxay bilaabeen in ay diiradda saaraan in ay ogaadaan xog walba oo ku aadan saraakiisha qaarkood ee ciidanka Itoobiya kuwaas oo bilaabay abaabulkoodii ugu xoogganaa oo ay ku doonayaan inay ku saldhigaan dhaqdhaqaaqyada guud ee ka wadaan dhanka iyo deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed gobolka Gedo iyo sidoo kale gobolka dariska la ee Boqol waxaa ka socda abaabul iyo qorshe weyn iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay bilaabeen sidii ay uga hortagi lahaayeen ciidamadii Itoobiya ay tababareen ee halkaasi joogay kuwaas oo la sheegay in qorshaha dhow uu yahay in Itoobiya ay saameyn dhow ku yeelan karto howlaha maamul dhisida maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo albaabkaas mar hore Itoobiyaanka uu ka soo xirmay ciidankii ka baxay deegaano ka tirsan gobolka Habay ayaa waxa ay gaareen gobolka Gedo iyadoona ciidanka Itoobiya goobo ay joogaan ay sii dhexmareen taasoo keentay in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe federaalka Soomaaliya in diiradda ay saaraan xaaladaasi iyo sida loo wajihi karo sargaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu tilmaamay in ay socdo qorshe iyo dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo arrimahaasi la xiriira waxaana uu hoosta ka xariiqay in mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida kumeel gaarka xilkaas u haya in ay ka shaqeynayaan sidii looga hortagi lahaa abaabulkaasi iyo isku daygaasi guud ee ka socda dhanka iyo deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kol hore waxay sheegtay inay saldhigayso barnaamijka looga hortagayo dhaqdhaqaaqa Itoobiya ee ka wado qaybo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka si gaar ah Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyadoona mas'uuliyiinta dowladdu ay tilmaameen in ciidamo fara badan la geeyo gobolada Bay, Boqol iyo Gedo iyadoona gobolka Jubbada Hoose dowladdu ay raadinayso albaabkii ay ka geli lahayd xubin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in isku daygan uu yahay mid lagu ogaanayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo xogahaasi guud ee socda taasoo keenaysa in mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha kaleba ay diiradda saaraan in la ogaado isku dayada kala duwan ee halkaa ka socda ilaha muhiimka ayaa warbaahinta xuraasi waxay u sheegeen in saacadii u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay waday dhaqdhaqaaqyadan iyadoo saldhigaysa qorshe walba oo ay kaga hortagayso damaca Itoobiyaanka ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolada dalka taasoo keentay in mas'uuliyiinta iyo xubnaha culays xooggan ay saaraan waa sida ay mas'uuliyiinta iyo xubnaha bay hadalka u dhigeen sargaal sare ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in waxa hadda socda uu yahay dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ee arrimahaasi la xiriira taasoo keentay in mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay bilaabaan sidii ay u gaari lahaayeen hadafka siyaasadeed ee arrimahaasi la xiriira sargaal sare ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in qorshaha socda iyo dhaqdhaqaaqyada guud ay yihiin kuwa intooda badan diiradda lagu saarayo sidii guud ahaan xaaladan loo saldhigi lahaa waa mid keentay in mas'uuliyiinta iyo xubnahanba ay bilaabaan in la sameeyo abaabulka iyo isku dayadaasi la xiriira qorshahaasi guud ee lagu saldhigayo in wax walba diiradda lagu saaro xaaladaha siyaasadeed ee ka jira deegaano ka tirsan gobolada dalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kol hore waxay soo xirtay dhammaan albaabadii Itoobiya ay ku sameynaysay damaca la xiriira arrinta iyadoona arrintaas looga gol leeyahay sidii saraakiisha iyo mas'uuliyiintuba ay u bilaabi lahaayeen isku dayada kala duwan ee la xiriira in la sameeyo dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira arrimahaasi
wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in mas'uuliyiinta iyo xubnaha ay intooda badan ay bilaabeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyada guud ee arrimahaasi ku saabsan iyadoona mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in ay wadaan isku dayada kala duwan ee arrimaha la xiriira si loo gaaro hadafka ama ujeedka ugu weyn ee arrimahaasi ku saabsan si looga hortago isku dayada iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira arrimaha hadda socda oo haddii arrintaasi aanay diiradda la saarin xaaladdu ay noqon karto mid kasii dari karta waa marka la eego dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka socda dhinaca iyo geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka sameynayso marka la eego horumarada dhinaca militariga iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee hadda jira ilahan muhiimka ayaa dhanka kale waxay sheegeen in dowladda Itoobiya ay wado isku dayadii ugu dambeeyay oo ay kaga hortagayso xiisad walba oo Soomaaliya kala soo dhexgali karta laakiin waxa la sheegay in saraakiisha qaarkood aanay ku aragtiyeen Abiy Ahmed kuwaas oo doonaya in la isku diro siyaasad ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya Abiy Ahmed ayaa saraakiisha ku heebta waxa uu si toos ah u faray in xilligan la joogo aanay suurgal noqon karin in dhaqdhaqaaqyada guud ee ka socda dhinaca Soomaaliya lagu farigeliyo dowladda federaalka isla markaana Itoobiyaanku ay xushmeynayaan xaaladahaasi si aanay dunida inteeda kale indhaha ugu soo taagin wixii warar idacdoyn arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta xuraansi ku daawo waad ku maasantahay daawashada ila socodka wararkayga